السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wanaag shacabka YouTube-ka aniguna waa Abdulqaadir Xasan Dooliye isku soo noqdo wanaagsan mar kale iyo muuqaal xiiso leh. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa interview-ga muuqaalkii saddexaad ayaan maanta ka sameyn doonaa. Hore waxaan uga soo hadlay laba muuqaal oo ku saabsan interview-ga imisa loo qaybiyaa. laba ayaan u kala qaaday. labadii waxaan ka hadlay mid protocolka ku saabsan, mid nidaamka ku saabsan, qofka markuu imaado sida loo qaabilayo, sida la rabo qofku inuu u dhaqmo, sida markaa dadka uu u fiirinayo interview ka qaad adeeg waxyaabo noocaas ku saabsan. qayb kale ayaa jirtay oo ah su'aalaha iyo qofka siduu ugu jawaabayo. haddaba qaybtan saddexan waxa uga hadli doonaa su'aalaha qofka la weydiinayo. waxa loo qaybiyaa laba qaybood. haddaba laba qaybood ayaa loo qaybiyaa. labada mid waa kuwa shakhsi ah oo qofka la weydiiyo asaga iyo waxa uu yahay meeshuu ka yimid iyo macnaha qabiilkiisa. kuwana waa kuwa deegaan. haddaba maanta waxaan uga hadli doonaa muuqaalkan kuwa deegaanka. kuwa kale ee shakhsina muuqaalka xiga ayaan kasoo samayn doonaa. intaana muuqaalka u gudagelin waxaan kaa codsanayaa qaybta hoose ee YouTube-ka subscribe inoo saar hadday tahay markii kuugu horeysay ee bartaan hulaagga shacabka YouTube-ka aad soo booqatid. sidoo kale muuqaalka laagta hoose anala gees marin dhiirigelin ayay noo tahay. haddaba interview-ga horey waxaad usoo daawateen laba muuqaal oo kala duwan. runtii dad badan baa daawaday. commentiyadan aad ayaan uga helay. commentiyo positive ayay dadka soo qoran. runtii aad ayaad u mahadsantihiin. dhiirigelin aniga ii noqotay. runtii qofka waxa la weydiiyaa badanaa deegaanku ka yimid. waxaa laga yaabaa qofkaas inuu sheego ama uu yiraahdo deegaan uusan ka imaan uu sheegto sida badanaa dhacda, ama waxaa laga yaabaa qofkaas deegaankaas inuu degnayn oo deegaan u dhow u degan yahay laakiin uu deegaankaas sheegto. tusaale kale badanaa dadka waxay sheegtaan shabeellooyinkay sheegtaan sida shabeellada hoose, shabeellada dhexe, hiiraan oo kale dadku way sheegtaan, galgaduud iyo mudugna way sheegtaan. marka badanaa saasay u badan yihiin. sidoo kale banaadir dadka qaar way sheegtaan. laakiin badanaa markii su'aalaha lagu weydiinayo kale ama magaalada laga rabo inaad baratid oo kale waxaad barataa. tusaale kale waxaad ka timid qoryoole maxay caan ku tahay? saddex bays iska fiiri. badanaa waxaa fiirisaa waxyaabaha ay magaalada caan ku tahay. haddii ay leedahay garoomo lagu ciyaaro, hadday leedahay oo kale meelo macnaha caan oo kale. waa laga yaabaa haddaad qaarada fiirisidoo kale ama qoryoole waxa ay caan ku tahay inaad fiirisid. magaalada waxaa fiirisaa dadka magaaladaas ku nool noloshooda maxay ku tiirsantay. noloshooda dadkaanu waa dad beeraley. okay, waa dad beeraley. haye sidoo kale magaalada webiga leedahay. magaaladu waa magaalo webi oo kale tusaale oo kale. okay, marka waxyaabahaas marka waa beeska ugu koowaad. haddii lagu yiraahdo magaalada beledweyne ma webiya mara mase webi ma maro, oo aad dhahay magaalada beledweyne webi ma maro, waxa cadeynaysa macnaha beentaadu waa been cad oo loo jeedo. laakiin badanaa waxyaabahaas baro. ha ku si mashquulin wadooyinka magaalada iyo waxbaas ha ku mashquulin. waxaa laga yaabaa in uu qofku ku yiraahdo wadooyinkeeda magaaladan waa imis. haddii uu lacala taas su'aashaas ay kugu timaado kale waxaad dhihi kartaa magaalada aniga waxaan ka degnaa qayb ayaan ka degnaa ama geeskaas aan ka degnaa. geeskaas maadaama aan ka degnaa dee aniga magaalada wadooyinkeeda iima tirsana. waa runo qofka maanta ku nool jarmalka oo kale oo hadda aniga aan joogo kale ku nool magaalada aan deganaa waddo uma yaqaan. marka in qofka marka uu magaalada degan tahay ama magaalada ka timid ama jawhar uu ku weydiiyo wadooyinkeeda imise waayo kale maxaa magaalada waxyaaba su'aal aad u tiro badan oo kale adoo warkaaga raadina. laakiin adiga ha isku badin. markii lagu weydiiyo lagu yiraahdo kale jawhar meeqe magaala beledweyne oo kale meeqe laamiya mara, hal laamiya mara ama laba laamiya mara. waa tusaale aan kuu sheegay moogtahay. maxay caan ku tahay oo kale waxaas caan ku tahay xaafadda degneed iskuuladeeda iyo waxyaabaha noocaas oo kale. qofka hadduu ku weydiiyo kale hal iskuul ka sheeg adeeg, laba iskuul, saddex iskuul waxba ka sheegin. intaasoo iskuul ku taal hadduu ku yiraahdo kale aniga ma aqaana dhe, aniga magaalada iima tirsano iskuuladeeda. marka badanaa waxyaabaha saas uga jawaab. dadka qaar magaalada inta lasii weydiiyo su'aalo aad u badan la weydiiyo ku qalqalaan. marka qalqalkaas ayaa la rabaa in negative lagu sii oo sharci lagu diido. magaalooyinka waxay ku fiican yihiin badanaa waxa laga helaa Google-ka. Google taleefankaaga soo qaadanaysaa magaalada jawhar iyo inta u qaybsanto ama magaalada jawhar ayaa ku qoraysaa.
total waxa ku soo baxaya magaalada Jowhar xaafad ayaa rabtaa inaad ka sheegatid markaad fiirisid magaalada Jowhar xaafadaha ay ka kooban tahay oo kale ama magaalada Beledweyne oo kale aad sheegata Beledweyne waxa ku taala gobolka Hiiraan waa magaalo madaxda gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne oo kale waxa ku yaala xaafado hodan la yiraahdo Howlwadaag oo kale la yiraahdo ku yaala Howlwadaag iyo hodan waxa ku yaala gobolka Banaadir markaad dhahdid xaafada Howlwadaag ee Hiiraan markaad dhahdid magaalada Beledweyne aad dhahdid waxa ku soo baxaysa xaafada iyo qaabka ay tahay oo kale waad arkaysaa hadaa rabto sawirada Google kaad fiirinaysaa that's easy aad ay u fudud yihiin runtii waxa laga yaabaa wadamada markaas aad adiga tagay sidoo kale ayaga kala duwan wadamada qaar su'aalaha dadka aad ay uga adkayaan laakiin waxaad ogaataa wadan walba oo su'aal ka weydiinaya magaalada aad ka timid wadanku raba ha noqdo kuwa marka interviewgooda adag ha noqdo kuwa interviewgooda fudud ha noqdo mid ku raba ha noqdo waxay kulligoodba ka baaran Google-ka ayay ka baaran Google-ka ka baaran sawirada ama waxa soo meesha u yaala qofku ku imaana wadan ku weydiina kulligood Google-ku ka baaran marka labadiina isku mid ayaa tihiin dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in qofkan gobolka ka badiyo qofkan ajaanibta ama wadanka u dhashay gobolka kama badiyo ani wax maanta ku sheegi doona waxay tahay in hadii aad wadamada qurbaha aad ku cusub tahay ama hadda kadib aad doonaysid in aad kaliya wax walba samaysan kartid interview aad samaysan kartid isku kalsoonaan kartid oo aadan u baahnayn qof kale inaad wax weydiisid oo aad baridid runtii labada muuqaal ee hore way ku anfacayaan si fiican u soo daaw waa base-ka koowaad ee markaas interview qaabkaad u gali lahayd su'aalahan waa qayb ka aan ugu talagalay oo la yiraahdo interview isbal yiraahdaa qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya oo ahayd qaybta deegaanka ee interviewga ee su'aalaha ah qaybta kale waxay ku saabsan tahay shakhsi ahaanta ayay ku saabsan tahay adiga shakhsiyadaada hadaba muuqaalka kale la soco muuqaalada horena soo daaw inuu ku anfacayaan ayaan rajeynaya insha Allah inta muuqaal kale oo xiiso leh ku kulmi doono waxay ka tagay sidaas iyo nabad geliyo